munaasabad xil wareejin ah ayaa ka dhacday magaalada Beledweyne caasimada ganacsiga dawlad goboleedka Hirshabelle waxaana ka soo qayb galay maamulka qaybihiisa kala duwan saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM ugu horeyn waxa goobta ka hadlay duqa magaalada Beledweyne Cali Cabduqaadir Cali Sandheere maanta waa maalin weyn sidaan hore arki jirnay waxaa jiro xil wareejin wax loo cusub lama ahan waana soo dhaweynaynaa waxaan tilmaamaysaa waa nidaamka waa nidaam kamida dowladnimada maadaama wadanka hore uga jiray burbur hadda waxaa muuqato kasoo kabasho in qof xil laga qaado oo hore ka aqbalo kii la soo magacaabana hore uu shaqadiisa kasii wadayo kalena uu kasii wareejiyo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaano ka socda dowlad goboleedka Hirshabelle midda koowaad waxaa jooga xildhibaanka Hirshabelle waxay noqdeen gaaraan hiiraan sidii tusbax ku tolo iska socda annaga dadana xildhibaanada raali kama nihin markastoo xilka la bedelo waana dhibaa in gobolkii hiiraan oo xildhibaanada ku matalaya Hirshabelle aan nahay in sidii daawadtii dadka loo siiyo oo lix bilood kasta inta nin takalala gidadan la cadeeyo markii waxaan raali ka nahay maaha oo inaan midtaa laakiin waxaan rabaa shacabkan ugu bishaareeyo isbuuc kahor waxaan soo ansixinay sharciga dowladda hoose sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed wuxuuna digniin u jeediyay odayaasha dhaqanka qoysaska aan laba doonada u kala tihiin leeduma haysto dhaqanka waa lagu ixtiraamayna oo aan uga shaqaynayna laakiin dadka qofka meeluu ku oodiyay in anigana buuxin kale ugu wareejinaa kuwa soo tuurtaan taakooyin buuxin kale ugu wareejinaana kuwa soo tuurtaan مسرح ويقولوا بوسو توتان هو كلام جميل قروا حاسما هذه اليوم وحاس ولا كلمة الله وحلا رواي الله إسرائيل والله إسرائيل بيجي يوقف إلى كم عزوتي ما قبل كم دينار والواحد يقار واحد يقار واحد يقدر حياة عفاك يستعجل ويلك أنا تركين كلاجة قارة أبو كي بلاحدي ولا حاجة هو قار مرحومين حفيز يقدر حياة الفنية kuwa hadda lagu soo bedelan aad ku madaxdii wadayeen xafiisadii adiga ugu dambeyn waxa munaasabada xilka ku kala wareegay gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda iyo maaliyadda iyo gudoomiyihii hore ee dhanka siyaasadda iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne iyo gudoomiyihii hore ee degmada Beledweyne assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhamaan waxaan salaamaha saraakiisha ciidamada AMISOM saraakiisha ciidanka xoogga وسيرة دولة دولة كهرشبelle xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan heer degme iyo heer gobol sidoo kale dhalinyarada salaamaha odayaasha dhaqanka bahda kale halkaan fadhiisa qof walba halkaan joogo waxaan ku salaamayaa inaan qofna ilaahay ma midda saddexaad ah in la sugootiyo dadka sideeda dhaqanka meeshan wax ka jiro la yiraahdo qof xilka laga qaado iyo kan loo magacaabo kii xilka laga qaadayna waa xanaaqsan kan loo magacaabay kii xilka looga qaado waa xanaaqsan yahay waxaan leenahay meeshii shalay turturadiinka turturrootee hadda ka leexda waa madada uu leexda ama madaxa uu leexda shaqada hore u socota ayaan taas ka gargaarnaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan waana soo celceliyay gudoomiyaha markii afraad maraysaa markaa madaxweynaha aad rajaynaynaa nabadoonnimadaada iyo waxaa isku wadaysaa in gudoomiyihii gobolka دول بعض الوسطين مركا إن شاء الله تعالى ما هو كان هذا والجهاد من السوق جميل يبغوا شيء نضيف هاي يوم صار بعدين تمام نور محمد علي KGS TV مقالة بلدوين